muran maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa doorashada 13 kursi oo ka mid ah 27 kursi ee Golaha Deegaanka magaalada Gaalkacyo ayaa maanta si rasmi ah loo soo afjaray kadib markii koonfurta magaalada Gaalkacyo lagu qabtay doorashada 13 kursi. Munaasabada doorashadani ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug Gaba-gabeeyay, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug iyo kan Gaalkacyo, waxaana lagu hor doortay 13 ruux ee matali doona Kuraasta Golaha Deegaanka. xubnahan la doortay ayaa waxa ay dhamaystir u noqon doonaan 27 xubnood oo maalmihii u dambeeyay sidaan horeba u soo sheegay uu khilaaf xoogani ka taagnaa, kuwaasi oo dadka qaar ay sheegayeen inay ku jiraan gacmo kale. Golaha ayaa maalinta Isniinta ee toddobaadka soo socda kuna beegan 26 Oktoobar 2020 dooran doona duqa magaalada Gaalkacyo. Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac oo doorashada ka hor halkaasi ka hadlay ayaa hadal dardaaran u jeediyay xubnaha halkaasi ku sugnaa, waxaana uu yidhi: aniga ku hadlaya magaca dowladda Galmudug, xukuumadda iyo kan madaxweynahaba, waxaan furanaynaa qaybtii labaad inay maanta halkan ay inoo shaqeyso oo doorashadii ay inoo bilaabato, annagoo rajaynayna hadday wax ka dhameeyeen inaanu maal iyo laba aan ku dhambayn doono. hadday noo dhantahayna alxamdulillah. waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa lugusgooy isaga u dhutiya. haddii Gaalkacyaay dadkii in matali lahaa fiican aad soo doorataana adee waa sidii la rabay. haddii kuwa muxuu ahaa ku in dhibay qaarkooda aad soo doorataana adinka le waayo marka. laakiin anaga mas'uuliyadna saaran waxa weeye inaan si xor ah inii siino, inaad habraaca iyo dimuqraadiyaddii loo baahnaa inaad bartaan oo bulshadu iyagu qofkii ay rabeen ay soo doortaan. marka haddaad dad fiican soo doorateen golihii inay ku matalayaan waa la arki doonaa. haddii isla kuwii madajeedka inii taagnaan jiray aad soo doorateen adinka taas adinka inii taala.